qofka nabiga sallallahu alayhi wasallam caaya tawbad ma leeyahay? su'aasha jawaabteedu waa haa, maya. waxayna ku xiran tahay hadba waxa looga jeedo fasirka tawbada. tawbada qofka nabiga caayay waa laba qaybood. kow, markuu nabiga caayo hadduu muslim ahaa diinta wuu ka baxayaa oo wuu gaaloobaya. qof muslim aan u malaynaya in laga hadlayo ama muslimnimo lagu ogaa. marka koowaad xukum xurridda ayuu mudanaya iyo in gaalnimo loo dilo. xukunka labaad ee ka dhalanayay waa xukumka al-isaa'a ila nabiy sal ly slam, nabiga oo lagu xadgudbay xuquuqdiisa. iyadana xaddeedu waa dil. labadaa xukun haddaba xaddoodu waa dil, midna waa ridda iyo gaalnimo, midna waa xumayn iyo ugefis nabi sala allahu aleyh ali wasalam. haddaba towbadu labadii xukun mid waa laga aqbali karaa, way ansaxaysaa, midna ma ansaxayso. mid waa ansaxaysaayo tii gaalnimada ahayd hadduu ka qoomameeyo oo ka shallaayo oo ilaahay uga soo laabto oo tawxiidsado, islaamnimadii dib u soo galo, dee sidii hore islaamnimada loogu gelayey buu ugu geli karaa isaga ikhlaas iyo daacad hadday ka tahay. tii gaalnimadu meesha way ka baxaysaayoo towbadeeda waa la towbad keeni karaa, waana laga aqbali karaa. ma ka towbad keeni karaa tii qadafka ahayd ama geftka ahayd, aflagaadada ahayd ee nabigu aflagaadeeyey sala allahu aleyh ali wasalam? taasi waa xuquuq uu nabigu lahaa. xuquuqda aadamuhu leeyahayna ayagaa intay nool yihiin cafin kara. hadduu dhintayse cid ka cafin karta lama arko. haddii uu nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam, dad buu ka cafiyey, cafiskana isagaa xaq u lahaa, qaybtaa xaqiisii bay ahayd. haddii uu dhintayse cid booskiisii geli karta oo ka cafin karta ma jirto. xaddii waa lagu fulinayaa, laakiin waxaa loo dilayaay waa xaddan laa riddatan, hadduu towbadii kale la yimid. waxaa laga yaabaa dalabatulcilmi qayb ka mida labadaas inay isaga qasmaan oo ilaahay qofkii caayaaba towbad keeni karo, islaami kare, waa shahaadan kara. kuwa nabiga caayoo soo islaamayna way jireen oo gaalo aha. islaamnimada cusubna waa la aqbalayaa min alriddati waalkufri. laakiin xaqii dhici lahaa haddaad qof adigu qadafto ama qof aad qisaas ka gasho oo dembiga qaybtii rabbi aad ka gashay uga toobad keento, qaybtii qisaastiisa iyo jinaayadii aad u geysatay isagaa kaa cafin kara.